wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar Axmed oo gaaray dalka Hindiya ayaa kulan la yeeshay dhigiisa dalkaas Sushma Swaraj oo ay ka wada hadleen arrimo la xiriira maxaabiista Soomaaliyeed ee dalka ku xiran. labada mas'uul ayaa ka wada hadlay sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran dalkaas Hindiya dib loogu soo celin lahaa dalka Soomaaliya kadib heshiis ay horay u wada saxeexeen labada dawladood oo dhigaya in maxaabiista Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo dalkooda. heshiiskani wuxuu u saamaxayaa dawladda Soomaaliya in iyada lagu soo wareejiyo 118 maxbuus oo loo haysto dambiyo la xiriira burcadbadeed oo hadda ku xiran xabsiga Taloja ee magaalada Mumbai ee dalka Hindiya kadib marka uu xukun ku dhaco. wafdiga dawladda ee tagay India ayaa lagu wadaa in ay boqdaan maxaabiista Soomaaliyeed si ay ugu kurgalaan xaaladooda gaar ahaan waxaa la filayaa in ay tagaan magaalooyinka Hyderabad iyo Mumbai. dawladda Soomaaliya ayaa wado dadaalo lagula soo wareegayo maxaabiista caalamka ku xiran taasoo aysan ku guulaysanin dawladihii ka horreeyay waana tilaabo wanaagsan oo ay dawladdu horay u qaaday. dawladda Qatar ayaa ururka ganacsiga adduunka ee World Trade Organization u gudbisay ashkato ka dhana 3 kamida wadamada afarta dal ee Carabeed ee dalkaasi xiriirka u jaray bishii June kadib markii ay ku eedeeyeen in ay taageerto ururada argagixisada. dacwadan ayaa ku beeqaysa wada hadallo ay Qatar la yeelato dalalka Sacuudiga, Bahrain iyo Imaaraad Carabta taasi oo bilaabanaysa muddo 60 maalmood gudahood ah oo dalalkan ay ku xalinayaan xiisadooda ama ay wajahaan ganaaxyo. 3 dal iyo Masar ayaa xiriirka diblomaasiyad u jaray ayaga oo Qatar ka xirtay xuduudahooda dhulka, badda iyo hawada 5tii bishii June ee la soo dhaafay sababo la xiriira inay taageerto xagjirinta waxa loogu yeeray. Qatar ayaa beenisay inay taageerto argagixisada waxaana ay sidoo kale ku gacan sayrtay diiwaan dalabyo ah oo ay 4 dal soo si Qatar ay uga qaadaan xanibaadda. cabashada Qatar ayaa waxaan ku jirin dalka Masar hase yeeshee waxa ay 3 dal ee kale ay ku eedeynaysaa inay ku kacayaan xadgudubyo dhinaca ganacsiga ah isla markaana ficiladooda aysan saameynaynin kaliya Qatar balse sidoo kale dalalka kale ee ganacsiga uu kala dhaxeeyo Qatar ay saameynayso. wafdi uu horkacayo wasiirka wasaaradda waxbarashada Hindaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Daahir Cusmaan ayaa gaaray magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. wasiirka waxa safarkiisa ku wehelinaya la taliyaha dhinaca tacliinta sare Dr. Cali Sheekh Ahmed Abuukar, agaasimaha guud ee wasaaradda tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf Cusmaan iyo madaxa guddiga horumarinta adeega bulshada ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi ayaa booqasho ugu bilaabatay dalka Suudaan. wafdigan ayaa waxaa garoonka caalamiga ah ee Khartoum ku soo dhaweeyay wasiirka dawlaha wasaaradda tacliinta sare ee dawladda Suudaan, maamulaha jaamacadda Afrika, diblomaasiyiin ka socota safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan oo horkacayo danjiraha safaaradda Maxamed Cabdullaahi Ogas. wasiirka waxbarashada Hindaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in Suudaan ay u yimaadeen isaga iyo wafdiga casuumad rasmi ah oo ay ka heleen wasiirka wasaaradda tacliinta sare ee dawladda Suudaan. dawladda Suudaan ayaa tan iyo burburkii waxa ay martigelisay ardayda ugu faraha badan ee Soomaaliyeed oo kuwaas oo intooda badan ay siisay deeq waxbarasho.
xubin sare oo guddiga doorashooyinka dalka Kenya u qaabilsanaa maamulidda hannaanka codaynta ee kombiyuutarada ayaa meydkiisa la helay sida guddiga doorashooyinka ay sheegeen. Musinda oo guddiga doorashooyinka ee IEBC u qaabilsanaa dhinaca farsamada tiknoolajiyadda ayaa sameeyay hannaan uu ku sheegay in aan la jabsan karin. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo isbuucun ay ka harsan tahay doorashooyinka guud ee dalka Kenya. Ninkan ayaa la waayay jimcihii aan soo dhaafnay sida ay sheegeen booliiska. Wargeysyada ka soo baxa dalka Kenya ayaa ku waramaya in meydka Musinda la helay iyada oo jirkiisu jirdil ka muuqdo. dowladda Kenya ayaa hadda wada baaritaan xoogan waxaana la sheegayaa in baaritaankaasi uu saameyn doono qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku jira ololaha doorashooyinka dalkaasi. doorashada dalka Kenya ayaa lagu wadaa in la qabto 8 bisha fooda inagu soo haysa ee August. kulankii shalay uu shir gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa looga hadlay howlgallada ka dhanka ah al-shabaab, xasilinta amniga dalka iyo xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga ee wadanka. kulanka ayaa waxaa ka qayb galay taliyayaashii militariga, nabad sugidda, booliiska iyo asluubta, waxaana lagu qabtay aqalka madaxtooyada ee dalka Villa Soomaaliya. intii uu kulanku socday ayaa waxaa kale oo lagu soo hadal qaaday sida lagama maarmaanka ay u tahay in laga hortago falalka amni darrada ah ee ay wadaan al-shabaab. madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu kulanku socday waxa uu dhageystay talooyinka saraakiisha amniga ay soo jeediyeen ee ku aadan sida loo sugi karo ammaanka, waxaana madaxweyne Farmaajo faray saraakiisha inay ahmiyadda koowaad siiyaan ilaalinta muwaadiniinta Soomaaliyeed. dhinaca kale kulanka ayaa laga soo saaray in la dhiso guddiga soo diyaarinta qorshaha dowladda ay kula wareegayso amniga dalka, kaasoo loo xil saaray saraakiisha amniga. madaxweynaha dowladda goboleedka Hiirshabeel Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa wareegto uu soo saaray ku magacaabay 3 degmo oo ka mid noqon doona degmooyinka gobolka Hiiraan. Cosoble ayaa u magacaabay Halgan, Ceel Cali iyo Farlibaax degmooyin cusub, taasoo guud ahaan marka la eego tirada degmooyinka gobolka ka dhigaysa ilaa 8 degmo. gobolka ayaa horay uga koobnaa 5 degmo oo kala ahaa Beledweyne, Buula Burde, Maxas, Jalalaqsi iyo degmada Matabaan. maamulka Hiirshabeel oo kamida maamul goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dalka ka jira ayaa wada dhaqdhaqaaqyo cusub oo ay ku horumarinayaan maamulkooda tan iyo intii la doortay madaxweyne Cali Cosoble. dhawaan ayay ahayd markii uu Cali Cosoble diyaariyay ciidamadii ugu horreeyay ee booliska oo ay yeeshaan maamulkiisu.